صور ما خليفة مقالمة صور مقالمة صور بديا wuu isjooxaarinayaa si muuqaal iyo sawir shidan oo hadhow uu ku boolo xoofteeyo looga qaado wuxuu qasbayaa oo qoor qabanayaa miskiin bajaajla ah oo qoyskiisa u raadinaya nolol maalmeed waxaa loo tilmaamayaa inuu hab xaraga leh u socdo una istaajiyo gaadiidka iyo bajaajada isaga oo iska dhigaya sida nin howlgal lagu baacsanayo kuwa dhacaba'an ka wada magaalada muqdisho fulinaya qofka aad arkayso waa taliyaha saldhigga degmada Waaberi balse keligiis ma qusayso sheekadan aan uga hadlayno sida booliiska Soomaaliyeed u sirayaan shacabka muqdisho oo hadda maraya heer $5 iyo wax ka yar darteed loo dilo qof dhiban mararka qaarna iyaga oo hurdaba guryahooda ay tuugada ugu dhacayaan kadibna wax kasta oo u yaala ay ka qaadanayaan waa madaxda booliiska oo sida inay jirayaal ka yihiin filim hindi ah oo action ah oo kale isugu jiibinaya been cad oo shacabkii muqdisho ay ka daaleen dadka aad arkayso ee dheregta u go'aya ee nimcada ka muuqata aawadeed calooshii ay ka horeyso waa kuwa ay dadweynaha muqdisho ka sugayaan inay amniga wax ka qabtaan hase yeeshee iyagu taasi beddelkeed waxay halkan ku hayaan wax aan doorin sheeko musalsal ah oo magaceedu yahay qowda maqashii waxnaha u qaban jilaaga weyn ee hal abuurka u leh madadaalinta shacabka dhiban ee muqdisho ee habeen iyo maalin dilka iyo dhaca lagu hayo waa taliyaha booliiska Masar Xijaar waxa uu markan kooxdiisa booliiska ee isaga ka amar qaata kula dardaarmaya inay fuliyaan howlgal lagu ciribtirayo tuugada laakiin natiijadiisu la sii og yahay taas oo ah inay fashil mooyee faa'iido aan laga dhaxli doonin sababta oo ah dunida kama jirto howlgal burcad lagu baacsanayo oo warbaahin loogu yeerayo lagana sii hordhacayo taliyayaasha saldhigyada 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa halkan ku dhar markanna mid kasta wuxuu isku diyaarinayaa inuu boolo xoofteeyo oo aan laga badin isagoo waliba iska dhigaya geesi dad qaad ah laakiin fuleynimada ka muuqata taliyayaashan wajiyadooda ayaa sawir cad ka bixinaysa inaysan ahayn kuwa saxda ah ee aan ka sugayno in amniga magaaladeena ay wax ka bedelaan heerkii ugu xumaa inta la xasuusto ayuu marayaa amniga muqdisho dharaar cad xitaa adiga oo hor fadhiya gurigaaga ayaa laga dhacayaa moobilkaaga iska daa taas xitaa adigoo hurda oo habeen ay tahay ayaa inta lagu soo dhaco lagu jirdilo kadibna laga qaadanaya hantidii guriga ku taalay waxa taas ka sii daran in mararka qaar tuugadan wax dhacaysa ay si cabsi la'aan ah u hormaraan askarta ilaalada ka haysa goobaha qaar ee dhaca ay ka fuliyaan mana jirto in ay ku dhiirtaan xitaa inay joojiyaan booliiskaasi tuugadan wax dhacaysa iska badaa inay la dagaalamaan waxaa shaki weyn haddaba laga qabaa in wada shaqayn ay ka dhaxayso booliiska iyo tuugada waayo sidee ku dhici kartaa in magaalo jid kasta oo aad marto uu ku yaalo bar control ciidan iyo saldhig degmo kasta leedahay sidan bahalnimada leh in wax loogu dhaco tuhunkan ah in ciidankan wax ka og yahay howlaha tuugnimada ee magaalada muqdisho ka socda waxaa caddeyn weyn u ah in halka mar ee howlgal ay fulinayaan booliiska ayba u sii sheegaan tuugada inay soo socdaan taasoo dadka magaalada la noqotay wax ay aad ula yaaban yihiin qofka muwaadinka ah ee hadda xamar jooga amni ma haysto dawlad amni u sugaysana ma jirto xitaa gurigaaga adiga oo ku jira kuma nabad helaysid waana quus meeshii u dambeysay haddaba talada dad badan ay bixinayaan waxay tahay in shacabku ay ishubeeyaan iskana celiyaan tuugadan musiibo helooyinka ah ayna iska ilaabaan in booliis Soomaaliyeed ay wax u qabanayaan waayo sida had arki kartaba booliiskeena waxay la ciyaaraan kaamirada ee tuugada ma eriyadaan